iyadoo lagu wado inay qabsoonto doorashada madaxtinimo ee dalkani Koonfur Afrika 7 May ee bishani aynu ku jirno oo ay maalmo qura ka harsan yihiin isla markaana ay diyaar garow xoogan ugu jiraan dadka reer Koonfur Afrika sidii ay codkooda u dhiiban lahaayeen maalintaasi ayaa jidadka waaweyn ee dalkani Koonfur Afrika laga dareemayaa mashquul saa'id ah iyadoo gawaarida dadweynahana ay soo buux dhaafiyeen jidadka halbowlayaasha u ah dalkani Koonfur Afrika jidadka sida weyn looga dareemayo mashquulka saa'idka ayaa waxa kamid ah jidka N1 ayaa kan N2 oo ah labada jid oo ugu waaweyn dalkani Koonfur Afrika dadkani wata gawaarida raaxada ayaa waxa ay u kala gooshayaan goobaha iyo magaalooyinka waaweyn oo inta badan ay ka dhacaan doorashada dalka Koonfur Afrika iyadoo hareeraha jidadkaasina lagu xardhay sawirada iyo waliba qoraalada xisbiyada u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalkani Koonfur Afrika dalkani Koonfur Afrika oo lagu tiriyo wadamada ugu jidadka badan caalamka ayaa iminka u muuqanaya mid u baahan jidad kale xisbiyada sida weyn ugu loolamaya qabashada xilka madaxtinimo ee dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa ay kala yihiin xisbiga talada dalka haya ee African National Congress ANC oo la saadaalinayo 80% inuu ku guuleysan karo qabashada xilka madaxtinimo Economic Freedom Fighters IFF oo hogaamiyo Joseph Malema waana markii ugu horeysay oo Joseph Malema uu soo taago qabashada xilka madaxtinimo ee dalka Koonfur Afrika waxa sidoo kale guluf ugu jira qabashada xilka madaxtinimo ee dalka xisbiga DA oo loolan aad u weyn oo siyaasadeed uu kala dhaxeeyo xisbiga ANC doorashada dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay sanadkan ka bedelan tahay doorashooyinkii hore iyadoo muwaadiniin Soomaali ah lagu wado inay codeeyaan doorashadani madaxweynaha iminka talada haya Jacob Zuma oo u sharaxan xisbiga ANC ayaa hadii uu ku guuleysto xilka madaxtinimo mar kale waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay oo madow ah oo ku guuleysto muddo 2 jeer ah hogaaminta dadka reer Koonfur Afrika Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Home Cable magaalada Johannesburg